السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. isku soo noqod wanaagsan oo xiiso badan. Maanta waxaan u gudan galaynaa cashirkeennii chapter 5 talking about the present. So waxaan rabaa inaan ka hadlo present tense. Present tense markaan idhaahaa simple present aan ka soo hadlay, laakiin present maanta waxaan ka hadlayaa xilliga time-ka inta badan. Preposition of time, and we are going to talk about time, we are going to talk about weather and so forth and so on. Marka waxaan ka bilaabaynaa hadduu alidmo using it to talk about time. Haddaad ku cusubtahay fadlan subscribe saar channelka si aad ula socoto cashirada qaab walba aan soo gelino ama maalin walba aan soo gelino. Haddaad nala sii joogtana aad iyo aad u mahadsantahay. Marka waxaan rabaa inaan qalinka ku duugo maanta hadduu Allaha awoodda leh ka raalli noqdo inaan ka hadlo using it to talk about time, inaan adeegsado it anigoo ka hadlayo waqtiga. For example, what day is it? What day is it? Maanta waa maalin ma. Okay, what day is it today? Today is Saturday. Okay. Question and answer. Inta badana waxay tahay Englishka qaabka aan ku bixinayna wuxuu yahay su'aal iyo jawaab si aad ku fahanto. Qaabka wax loo weydiiyo iyo qaabka aad ugu jawaabi lahayd. Because hadalka dhanaa wuxuu yahay su'aal iyo jawaab. Haddaan ku yidhaha what day is it? Waxaad ku jawaabi kartaa it is Friday. waa Jimco. It is Friday or it is Friday. It is done. cashiradii hore haddaad nala socotay it is done contraction waaye. It is oo lasoo contract garay ama apostrophe soo geli waaye. So what day is it? Maanta waa maalin ma. It is Friday. waa Jimco. What month is it? What month is it? waa bishee ayaan ku jirnaa. It is October. It is October. Laakiin bisha haddaan ku jirno waa January 2022 sanadka 2020 Janaayo. It is October. waa October. What year is it? waa sanadkee? It is 2015. laakiin hadda maxaa waaye? It is 2022 sida saxda ah. laakiin cashirka xilliga la aasaasay ama la sameeyay 2015 ka ah. Okay, what's the date today? So dhammaan waxa aan qaadanayno waa what day, what month, what year and what's the date today. Haddii what year and what month and what day aan arkay, laakiin taariikhda maanta maxaa waaye? maxaan dhahayaa what date ma dhahayo. What is the date today? It is June 8th or it is the 8th of June, depending on which one you use. Okay, what time? What time is it? saacadda waa imisa. So dad kolay waa la yaqaanaa saacadaha analogga ah, digitalka ah. Ushaas markay ku taagan tahay waa shantii oo yacni waa daqiiqadii eber u buuxsamay. intana waxay ku tilmaamaysaa saacaddii. hadda shantii ku taagan tahay. It is 5 p.m. It is 5 p.m. or it's 5 in words. So it is 5:00 or it is 5 in words. Okay, or it's 5 o'clock. waa shantii oo buura ah. It's 5 o'clock. That it is 5, it is 5 or it's 5 o'clock are still the same. Or it is 5 o'clock means it's 5 p.m. It's 5 p.m. So labay u kala baxaan. Americanka saan u qora saacadda 2 dhibcood uu siinayaa, laakiin Britishka wuxuu siinayaa 1 dhibic. hadda aragto 5.00 waa shantii oo buura waa British. haddaad aragto shantii iyo 2 dhibcood oo eber ku xigto waa American. Okay, this is just a small practice. What day is it? What day is it? Today maxaa waaye? What day is it? It is Saturday. What month is it? It is January. What year is it? 2020. What's the date today? 1st of January 2020. Let's practice. What day is it? What day is it? su-aashan islaantana weydiisay waxay tiri what day is it? maanta waa maalin ma. gabadhanaas jawaabta laga rabaa, laakiin jawaabta falaara lagugu tusiya halkan. Okay, maxay ku jawaabtay aragna? What day is it? It is Saturday. It is Sunday. Sorry, it is Sunday. waa Axad. It is Sunday. It is Tuesday. su-aasha maxay noqonaysaa? What day is it? What day is it? It is Tuesday. It is Tuesday. Then it's November 29th. What is the date today? What's the date? Or what day is it? What day is it? It is 29th November 2000 xilliga ahayd. Okay, 1:30 la soo qoray meeshaan. What time is it? What time is it? It is 1:30 p.m. It is 1:30
p.m. The 3rd of May 2012. The 3rd of May 2012. maxaa la weydiinaya markaan what is the date or what's the date today? It is the 3rd of May 2012. The 3rd of May on Saturday. On Saturday, yes. Okay, preposition of time. aan ka hadalna marka. There are types of prepositions. midaan u dul istaagi doonaa laakiin maanta prepositionka qaadayna wuxuu yahay preposition of time. meelee. Preposition waa meelee. muxuu meeleynayaa waqtigii. aan ogaana marka how it is going to present itself in the time. We eat breakfast in the morning. We eat breakfast in the morning. In the morning. So we eat breakfast. Okay? What preposition of time aan ka hadlaynaa? We eat breakfast. waxaan cunaa breakfast in the morning. quraacda waxaan cunaa aroortii ama subaxii. So okay, at is a preposition of time. We get up at 5 a.m. We get up at 5 a.m. waxaan soo toosnaa 5tii subaxnimo. So at waxaa loo isticmaalaa specific time. waqti khaas ah ama waqti cayiman. 5tii waa waqti khaas ah. Okay, we exercise at 2 p.m. We exercise at 2 p.m. at still specific time. At still specific time ayaa loo isticmaalayaa. Okay, at I get home at night. I get home at night. gurigu waxaan imaadaa habeenkii. At still waxaa loo isticmaali karaa night or specific time. At 10 o'clock, at 5 p.m, at night. Okay. In aan fiirina marka. School starts in September. September in marka waxaa loo isticmaalaa plus month. markaad rabto inaad bish isticmaasho. Which month? She went to Florida in 2005. So in waxaa kaloo ku daraysaa year. In plus year. In plus month. So she went to Florida in 2005. waxay aaday she ayada went to Florida. Florida ayay aaday 2005. 2005. I take a walk in the morning. In plus the morning. So subaxii markaad rabto inaad wax ku darto preposition of time waxaad adeegsanaysaa in plus the morning. Okay, on aan fiirina marka. She goes shopping on Tuesday. She goes shopping on Tuesday. waxay shopping aadaa talaadadii. So on plus specific day. maalin khaas ah on aad u isticmaali kartaa. halka time khaas ah aad u isticmaasho. Then she goes shopping on Tuesday. The twins were born on March 3rd, 2005. So specific date and specific day. On. Okay. From to. I'm feeling like a preposition of time also. I work from 9 to 5. I work from 9 to 5. From is a time and to is a time. From time to time. waqtigaas waxaan shaqeeyaa I work from laga bilaabo 3 ilaa 5. Okay, let's practice before we end our lesson today. waxaan haysanaa at, in, on, from, to. Okay, the baby was born dash Monday. He was born on Monday. The baby was born dash July. In July, the baby was born dash 2 p.m. at 2:00 a.m. The baby was born at 2:00 a.m. At, in, on, from, to. I work dash 8 a.m. dash 4:30 p.m. From 8 a.m. to 4:30 p.m. Okay. I teach a class dash 8:30 a.m. dash Monday. I teach a class at 8:30 a.m. on Monday. 8 a.m. laga bilaabo waxaan baraa fasal ayaa waxaan bixiyaa xiska bixiyaa ma aan baraa laga bilaabo 8:00 subaxnimo ilaa iyo galabtii galab walba oo isniin ah on Monday. He swims dash the afternoon. He swims in the afternoon. asaga wuxuu dabaashaa xilliga galabtii in the afternoon. Okay, next time markaan u guda galayna cashirkeena kan xiga oo noqon doona using it to talk about the weather. waxaan rabnaa marka inaan cimilka ka hadalno. It is rainy, it is sunny, it is windy, it is cloudy, it is calm, it's cold, and so forth and so on. waxaan idinkaga tagayaa inaad sii sheergarayso cashirka asxaab badanna aad gaarsiiso si ay nogala faa'iidaystaan dhammaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. sanad wanaagsan.